فرح ولادي الهردة إما قبطاني هبنكي أن متكين هقاك فرح ولادي الهردة إما قبطاني walaalnimo wahibo walaalnimo wahane walaalnimo habeenkii aan midkiin hagag farax walaadin hurda ima qabatwani habeenkii aan midkiin hagaag farax walaadin hurda ima qabatwani بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفلتيني waxay noo socotay qaybtii labaad sogootintii Axmed Cabdiraxmaan Saalax ima kaynu salaadii ka baxnay maadaama ciid hayd Axmed waxaan ku wareejinayaa siino salaada kama dambeyn laakiin waxay weyn iska takbiiranayaan takbiirtuna waa mutaakhir weey Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd waxa kale takbiirtay noo sii wada doona Sheekh Xasan الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا بعد تكبير waxaan ku wareejin doonaa mikrofoonka dhamaan ragga dhinacan fadhiya si ay waxoogaa tahaniyad iyo sagootin hambalyaas kugu daraan walaalkeen Axmed Cabdiraxmaan Saalax السلام عليكم dhamaan asxaabta doon salaamaya maanta waa casar galaba waana qaybtii labaad ee sagootinta Axmed Cabdiraxmaan Saalax walaalkeen Axmed Cabdiraxmaan Saalax kulliidee oo naga sii tagaya tahniyadana sayidalaadi baynu qoonay waxaan leeyahay waa nabadgelyo iyo nabadiino بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله maanta bartan waxaan isku nameynaa walaalkeen ku sii sabootinaa Axmed Cabdiraxmaan Saalax waxaan leenahay walaal safar salaam ah safar ku fuday السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته halkan maanta waxaan ku sabootinaa walaalkeen Axmed Cabdiraxmaan Saalax waxayna leenahay nabadgelyo nabadiino بسم الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إن شاء الله تعالى وإني السبوتي رنسميني أحمد عبد الرحمن صالح صاحب الوقالية كل حالي توري وحي دردارنا مركا رقو سوچيدين يوان ليلي أنا مركز تردارن كيغو حنقوني إن شاء الله تعالى إنو إن إلهي عبادتي سكولا ليبرد كاو تغيو مروا لبا رجيني إن شاء الله تعالى إنو قوليستو وحنا إن شاء الله تعالى مركز تحسوسين يا أصحابتنا إنو إلابين ومركا إهل يا قرابة يا أصحابين تبو صوحري هدي إلهي لهذا مروا لبا إن شاء الله تعالى رجيني يا إني عافي مادي يقول وارتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله marka hore horta waxaan aad iyo aad u salaamayaa dhamaan asxaabtayda aan maanta halkan nagu kulmisay sabootinta saaxiibkayo Axmed Cabdiraxmaan Saalax Axmed oo runtii ah saaxiib aad iyo aad noogu qaaliya oo ah saaxiib aanu soo wada qaadanay waqti waxbarasho iyo waqti saaxiibtinimo runtii kii ugu qaalisanaa maantana aanu ku sabootinayno Axmed waxaan leenahay horta ilaahay dee safarka ha kula garab gala saaxiibe dee safar salaama saaxiibo ilaahay dee ha ku nabadgeeyo horta wixii la oranayay waa la yiraahday in waxaan oran lahaayeen Axmed
dee waxaan ku xasuusan lahaayuun dhirbaxadiisa ka jiri jiray moogta dhirbaxadiisa xumeydee dareemi jiray taatan ka imaado waxaan leeyahay dadku dee hooyo aaba ku wada noqoy safar khayr qabiilada kaaga dhig عليكم ورحمة الله وبركاته maanta muhiimada ugu weyn ee meesha isugu keentay waa sabootinta walaalkan Axmed Cabdiraxmaan Saalax taasoo aan sabootinayo leeyay safar salaam saaxiib munaasabada ciid darteedna waxaan leeyahay asxaabta kale ciid mubaarak horta waa layga soo wada horeeyay hadalkii aan islahaa dhaba laakiin haddii la soo wada dhameeyay hadalkii ay dhowr iyo toban nin meelaha iga soo wada horeeyeen wax kale oo nidhaahon ku sii daraa ma jirto waxaan ku leeyahay Axmed oo saaxiib waqti badan bay soo wada qaadanay waqtigiisana ilaahayna kula siiyay saaxiib safar salaama ilaahay nabada ku geeyay بسم الله الرحمن الرحيم maanta waa maalin isniina isla markaana maalin kasta xaga ciida waxaan halkan hambaliyay tahniid ugu dirnaa walaalkan Axmed oo dalka dibadiisa aadaya waxaan leeyahay Allah ka yeelo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo umadiisa anfaca waan ku hambaliyay in badan waan isku soo ducayn doonaa aad iyo aad buu mahadsanyihiin dhammaan ragga hadalka soo dhiibtay waqtigooda nagu yaraa aawadii nin walba wuxuu odhan kara yiraaday waxaan ku wareejin doonaa Axmed si uu isaguna waxoogaa u ka yiraahdo بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين aad bay u mahadsan yihiin dhammaan walaalaha sharafta leh ee halkan nagu casuumay runaantii waa xafladii labaad ee maanta noo qabanayaan tan waan sii ogaayo laakiin kameradaasaan ogeyn xalay bay ahayd markii sikadiisa oo naxdinta xalay baa weli igu sii jirta sikadiisa markii waxa weeye nin aroos u socdaan hayo waxa weeye liigayay meel xaflad lagu qabanayo markaan boorka arkayna aan weliba aad u sii naxay aad uga sii naxay waxaan ka filaynay baan runtii kala kulmay marka dhammaan aad baa u mahadsantiin walaalayaal baan leeyahay walaalahayga waxa la rasuulka kaleey salaatu salaam wuxuu yiri man laa yashkuru an-nas laa yashkuru illah qofka aan bini aadamka u karin waa mahadsantiin uma karo ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu yiraahdo ilaahu mahadsanid taasna xalay aad baa u mahadsantihiin waqtigeena eryana inagu gaaban aawadii waxaan ku soo xiri doonaa xafladeeni intaas inta tan iyo kulanti dambe ku kulmi doono waxaan kaga tegaynaa assalaamu calaykum saaxiibkaaga wanaagsan wehel weeye ku kaaba wada fiican tilmaama oo samaan kugu waansha saaxiibkaaga wanaagsan warwarkuma horseedo walaac kuma qorsheeyo mana wiiqo dantaada saaxiibkaaga wanaagsan warwarkuma horseedo walaac kuma qorsheeyo saaxiibkaaga wanaagsan waqtigii yar xumaada kama weydid agtaada dhibta kaaga ma weecdo saaxiibkaaga wanaagsan wayel wey taladiisu oo wax sheega hadalkiisu farxad waa wejigiisa